Aroor hore, shaqaalaha TV-guna ay u socotay xaruntii shaqada, waxaa khilaaf ka dhex dhacay iyada iyo ninkii qabay. Ninkaasi oo businessman ahaa, waxa uu moodayay in haweenaydiisu ay ka qarisay fayl ay tusayso dadkay cadowga yihiin. Faylkaasina uu aad muhiim u yahay. Iyada oo murugaysan oo cadhaysan oo ooyeysay ka soo baxday gurigeeda, waxayna farta ka saartay kaatunkii dhalashadeeda oo uu u hibeeyey ninkeedu si aanay u xasuusan. Waxayna ku ridatay fargalka boorsadii lacagta, iyadoo leh markani waa markii u dambeysay. Waxa aan weydiisanayaa warqaddayda marka aan ka soo laabto meesha shaqada, intuusan isaguba juuqii odhan. Isla maalintaa, ilmo yar oo agoon ah, hooyadiina u wanaagsan, akhlaaq badanna leh, oo u socda warshad nijaaradda ah oo uu ka shaqayn jiray si uu ugu bixiyo masaariifta hooyadii iyo walaashii, ayaa uu ka daahay. Sidaas daraaddeed, subaxii baa la soo buriyey. Sababtuna uu u daahayna waxay ahayd hooyadii oo xanuunsanaysa ayuu habeenkii ku dhafray. Wiilku guriga waxba kuma ogeyn. Hooyadiina inay dawo u baahan tahay ayuu ogaa. Sidaa daraaddeed, waxaa la soo diristay markii shaqada laga buriyey murug adag. Waxaana uu fadhiistay meel kaabad ah oo bannaan ah, isagoo ilmeynaya, Ilaahayna baryaya. Gabadhii TV-ga u socotay shaqaalaha ahayd ayaa markay gaadhiga waday waddada, waxay aragtay wiilka. Inta baabuurkii joojisay bay boorsadii iyo wixii ku jirayba siisay wiilkii. Waxay ilowday in kaatunkii dhalashadeeda oo maas ahaa ama dheeman ahaa uu ku jiro. Wiilkiina waa uu u duceeyey, alaabtiina waa qaata. Wiilkii oo gurigii aaday, waxa uu la kulmay hooyadii oo salaad duxa tukatay una ducaynaysa. Markuu wiilkii furay boorsadii yaraydna, wuxuu ka helay kaatunkii. Waa uu soo dhaqsaday, isagoo meeshii u soo laabtay uu haweenayda ku arkay, laakiin ma uusan helin markan. Gurigiisii ayuuna isaga soo laabtay markuu waxba soo waayay. Gabadhii markii shaqadii u soo dhammaatay ayay waxay timi gurigeedii, waxayna ka war heshay ninkeedii oo raaligelinaya, kadinkana u taagan si uu u cafis uga dalbado, una sheegaya faylkii uu kaga shakiyey iyada inuu ka helay xafiiskiisa. Halkaasi markii xaajo marayso ayay haweenaydii waxay xasuusatay fargalkii dheemanka ahaa ee ay tuurtay. Murug ayaa daf la siiyey, iyadoo aan kelmadba ku hadlin. Haweenaydii subaxii subaxaa xigay waxay aaday meeshii ay ilmaha yar kula kulantay. Waa ay la yaabtay markay aragtay wiilkii yaraa oo baadhbaadhaya dadkii meesha marayay oo dhan. Markii uu arkayba, wuu kula soo orday, waxaana uu siiyey khaatankeedii isagoo oo raaligelinaya. Haweenaydii ayaa waxay la yaabtay wiilka ammaanadiisa. Markiiba waxay u qaadatay gurigeedii, ninkeediina way tustay. Markii ninkeedu uu qisadii wiilka ogaadayna, waxaba uu u iibiyey warshad dhan oo nijaarad ah, si waxa ka soo baxay faa'iidada ah ay laba ugu qaybsadaan. Cunugii ayaa inta Ilaahay ku shukriyey oo sujuuday, yidhi nebigii Ilaahow run baad sheegtay. 3 khislo ilaaliya. Ilaahay iyo rasuulkiisu waa idin jeclaanayaan. Inaad runta sheegtaan, inaad ammaanada gudataan, iyo inaad dhaqankiina deriska hagaajisaan. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا
بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. qisadan waxaa iska leh gabadh carmal ah. Ninkeedii waa uu dhintay. Intaas kadib waxa ay bilowday barbaarinta wiilkeeda yar. Wiilkeedaas yar oo 6 jir ah waxa ay ka shaqo gashay guryaha reeraha si ay biilkiisa u kafargarayso. Waxa uu bartay isaguna waxbarashadiisii hoose dhexe sare ilaa iyo uu dhameeyay jaamacadiisa. Mar walba waxa uu ilaalin jiray sharafka hooyadiisa u shaqaysa. Baarina waa uu ahaa. Maalintii dambe ayaa waxa u soo dhacay war guul ah oo farxad ku dhaliyay reerka oo dhan. Warkaasi oo ahaa in waxbarasho dibadeed loo diray wiilkeeda. Waxa uu gudagalay wiilku inuu hooyadiis bogaadiyo oo uu sagootiyo una sheego inuu jecel yahay. Hooyadu waa ay wiilka bogaadisay waa ayna la dardaarantay waxayna uu ku tiri hooyo warkaaga hayga dheeraynin mar walba ila soo hadal ka digtoonow naftaadana u taxadar wax khaldanna ha samaynin. Wiilkii isaga oo dhol cadaynaya ayuu hooyadii waxa uu sheegay hooyo sidee baan ku ilaawayaa iyadoo ilaahay igu kaabalamiyay ina ka dardaaray rasuulkeeni subhana calayhi salaatu wasalaamna uu yiri aljannatu taxta aqdaami al-ummahaat. xadiiskaasi oo macnihiisu yahay jannadu waxa ay ku jirtaa lugaha hooyooyinka. iyo xadiiska kale ee sheegaya raalli ahaanshaha rabbigu waxa uu ku jiraa raalli ahaanshaha labada waalid. cadhada alle waxay hoos gashaa cadhada labada waalid. hooyada aad ayaa qalbigu ugu degay wiilkeediina safar ayuu galay. kolkaasi wiilkii waxbarashadiisii uu soo dhamaystay. waa uu soo laabtay wiilkii muddo dheer kadib. hooyadiina waxay ku soo dhaweysay farxad aan la yaab leh. hooyadiina waxay ku soo dhaweysay farxad weyn oo la yaab leh. weliba hooyada waxa farxad geliyay markii ogaatay wiilkeedu inuu shaqo heer sare ka helay wadanka. waxayna hooyadu diyaarisay xaas sharaf leh inuu qaato wiilkeedu. gabadh ayayna u diyaarisay wanaagsan oo diinta ku dhaqanta qur'aankana taqaana. warbixintii markii uu ka helay hooyadii waxa uu u sheegay hooyo arrintaasi inaanay suuroobaynin. waayo anigu wiilkii wax ila baranayay walaashiis oo hanti leh waxna baratay ayaan ku heshiinay inaan guursado markaan soo laabto. hooyadii warkaas kama aysan xumaanin. waxayna u hamiday wiilkeeda farxad iyo rayn. bilayarka gadaal waxaa la xadeeyay meeshii lagu kulmi lahaa ee guurku uu ka dhici lahaa. meesha ugu sarreysa magaalada ayaa la damcay in laga tunto hoteelka. markii la isugu yimi fadhigii arooska ayaa wiilkii waxa uu dhinac fadhiistay gabadhii caruusada ahayd. waxaana uu dalbaday hooyadii inay u timaado oo salaanto gabadha caruusada ee nolosheeda ay halka mar aragtay. hooyadii warbixintaasi aad ayay ugu faraxday waana ay salaantay. weliba hab ayay siisay gabadhii uu guursaday wiilkeedu. arrinta yaab kale waxay ahayd in gabadhii aroosada ahayd ay xanaaqday qaylisayna hooyadii wiilka ku qaylisay kuna tiri waxaad iga wasakhaysay fustaantaydii ama maradii guurkayga. fustaantu waa marada dheer ee cad ee dumarku ay arooska u qaataan ama taash. aad ayaa looga naxay warkaas iyada oo caruusadu markaas caruuska amraysa say hooyadaa sidan u noqon kartaa uskaga weyn leh meeshaan ka kaxee qoftaan uskaga ah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Arooskii waa uu istaagay isaga oo yaaban, waxaana uu gacanta qabsaday hooyadiisa, waxaana uu gacanta kale ku qabsaday makrofanka isaga oo dadka la hadlaya kuna leh maxaan u sameeyaa hooyaday si aan u raali geliyo xaaskayga, isaga oo leh yaa iga gadanaya hooyaday. Waxa uu ku celceliyay 3 goor yaa iga gadanaya hooyaday. Weliba markaasi iyada ah indhihiisa ilmo ayaa ka da'aysay. Waxa uu markiiba iska siibay fargalkii guurka, wuxuuna ku dhuftay lugaha xaaskiisii. Weliba markaasi waxa uu lahaa aniga ayaa gadanaya hooyaday. Wuxuu eegay xaaskiisii isagoo ogeysiinaya inay furan tahay. Mar ayaad furan tahay, mar labaad ayaad furan tahay, hal xabba ayaa ku hadhay, iyadana waad furan tahay. Waxa uu ka haystay hooyadii gurigoodii ayuuna la aaday. Bulshadii oo dhan arrintii way ogaatay. Aroortiina waxa uu yimi nin wanaagsan. Ninkaasi ayaa waxa uu ku yidhi hooyada baarinimada aad u samaysay aawadeeda anigu gabadhayda nin kale uma ogolaanayo, waxaana ay kugu mehersan tahay adiga laga bilaabo xilligan. Hooyadii waa ay faraxday, isla markiibana waxay u sheegtay wiilkeedii inuu ninkani yahay aabbaha dhalay gabadhii ay u doori lahayd markii hore. Hooyo, waa hadiyad Ilaahay ka timi, xaqna iyadaad u leedahay. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. Mahadsanid.